الباب كيف مسعي شو قاطع لا سمع ما غدي ما مالمود كلنا هالمال هذا كواس الباب هو حقي يل اوكي سدح مالنا روس سمع اوكي وانا هالمال هو wadaagay assalaamu calaykum aniga iyo ninaan saaxiibnahay magaciisa la yiraahdo Jamaal Axmed iskalana shaqeyno maqal raadiyo ayaan sanad walba soo booqnaa wadankii annagoo markaa xoogga saarnaa dhinaca iyo arrimaha bulshada marnaba xoogga ma saarna qabyaaladda iyo siyaasaddan la yiraahdo soo yaacay waxaanu markaa door bidnaa inaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ku xiran radio maqal iyo barta Mahad Cabdulla ku leeyahay YouTube-ka taasoo markaa arrimaha bulshada markale haddaan ku celiniyo waxyaalaha aan aad ku xiisayna waxa kamid ah inaan farsamada gacanta dadka farsamada gacanta wadana waxa horumar ku gaaraa hadduu farsamada gacanta ka dhisan yahay inaan markaa bal soo eegno meelaha hoose ee farsamada gacanta halkan saddex goobood ayaan idin soo qoontaynay oo ah farsamada gacanta anagoo jecel inaad la wadaagtaan lana sheer garaysaan saaxiibadiin sida markaa ay iyaguna wax badan uga bartaan waayo dad badan baa waxay inta badan xoogga saaraan daar dheer iyo daara dhaadheer oo bilaa macnaha annagu se waxaanu xoogga saarnaa inaan bulshada la wadaagno markaa waxaan codsanaynaa inaad saddexdaa qaybood aad qaybisaan si ay markaa bulshada u barato farsamada waddankeenu u baahan yahay si aan u dhiirigelino bulshada Soomaaliyeed annagu waxaanu isleenahay kaliya ganacsatada in aanu dhiirigelino taasana xoogga xusaaray magaaladan Hargeysa ayaa waxaan kula kulmay dad badan oo dadaalaya oo iyagu gacantooda wax ku maalaya kuna soo saaraya waxa alla waxay u baahan yihiin dad badan baa ka qaxaya magaaladan oo ama wadankan u qaxaya meelaha aan looga baahnayn in shacabka Soomaalida ay ku madhaan waxaad arkaysaa dad badan oo magaaladan ku nool oo iyagu waxooda soo saartay sida halkan idinkaga muuqda iyagoo sameynaya booyadaha alxanka hadday noqon lahayd booyadaha biyaha lagu kaydiyo oo sida halkan aad ka arkaysaanba markaa waxaan kula talin lahaa in dadku ay bartaan kana faa'iideystaan dadkan aadka u yaqaana inay dhex galaan oo iyagu ay kasii bartaan ama bulsho weynta kale ganacsatadu ay dadka masaakiinta kale waxba gacanta ka aqoon ay ku soo xiraan si halka labada qofba weyn ay u noqoto waxa afka qalaad lagu yiraahdo waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed ay hadday isku tiirsadaan inay wax soo saari karaan una baahnaynaa in dibadda wax laga raadsado waa anigu sidaan qabo حبت لقى دبا تاغاي لبا لقى دغا اي كسان عمل واي اساس او قبسنا ما لبا حبه سان دبا تالو سمين كرا رابطان علمي وبانته اللي بروانيو اللي بروا معلم كيف نقام معلم ميا بارشان اللي برني ورا ما هايزين ايه الباب ماكن لكن كل ذيك ما اسمي ما شاء الله حقنا لا سمي نقانا خطرة اوي هاد بان ugu farxay in maaragtay wadanka laga sameeyay barnaamij marka kuwan waa ku biyaha kana albaaba sameeyno saad okay ma sha Allah yaala meeshan magaciis al nuur mala nuur argeys ka war الله قبضت أنا هذا أنا ميدان الله قبضت عن ربع موقت أنا الله قبضت عن ربع اللي قاوي وأنا برت عن ربع سدح بلوضة ما شاء الله ما شاء الله يطبوا هاد بقى مات مقع إساقو أنا قرر مات مرشونك وأنا أركي سنة الباب اللي قسم إياه كركي الباب كل اسبوع حراي ما كدبمي حاجه دم اوكي حاجه دم لو سوق لها ما شاء الله
albaabkii bay mise cishu qaataa in la sameeyo meeqa maalmood hadda kuwaas albaab waa xaggi yaal okay saddex maalin lagu sameeyaa okay waana hal maalin ما شاء الله والله dadku way dadaalayaan waa shaqaysanayaan shaqo fiican aad taal meeshan aad waxay kaloo ishaydu qabanaysay geedkan ugu dheer ee magaalada ee markaa tiyaatarka ka dambeeya oo la ii sheegay geedkan inuu 150 sannadood ilaa 160 sannadood uu jiray oo markaa ay meeshan lagu sameynayay booyadaha hoostoodana ay geedka ku harsadaan marka duhurkii taasoo aniguna aan ka mid noqday nasiib u helay inaan halkaa ku harsaday goobtan idiin muuqataa waa Kuwait Educational Academy oo iyadana lagu barto cilmiga farsamada gacanta taasoo aad arkayso dareemaysana in wax badan ay ku soo kordhisay magaalada waxaad arkaysaa sariiro albaabo iyo waliba basketball iyo garoonkii kubadda cagta kiibarkana lagu sameynayo waxay kaloo sameeyaan inay baraan habka cusub ee casriga ah cilmigan markay noqoto sariirta loo xiro iyo waliba farsamada ugu muhiimsan waayo dadkeenu ama wadankeenu waxyaalaha ugu weyn ee ka maqan waxa weeye farsamada marka waxaan aaminsanahay inay ku soo kordhiyeen beeraha qaybta beeraha oo aad looga adeegto meeshan goobtan iyo waliba farsamada gacanta oo ay noqotay inay albaabada ugu casrisan ay goobtan ka sameeyaan Kuwait taasoo maalgelisay dowladda Kuwait macallimiinta ka shaqeeyana waa Egyptian sidaan maqlay marka goobta tagay iyo macallimiin Soomaaliya marka goobahan oo kale waa goobaha muhiimka ay tahay in la xoog la saaro bulshadu inay la qaybsato oo marka wax badan ka faa'iideysato sida daraadeed abaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa hal badiyo goobahan oo kale marka Kuwait aad bay u mahadsan yihiin anagu ma baahnin casri iyo wax lagu sameeyo laakiin waxaan u baahanahay in dadkeena ay wax bartaan ay markay noqoto farsamada marketing iyo economically qiimo nooma sameynayso waxaan noo sameynmaya albaab cusub oo uu ina Soomaaliyeed uu leeyahay sameeyay taasoo anaga nooga muhiimsan taasoo sharaf noo ah taasoo ummadda sharafta u ah Kuwait Jarati Academy-ga aad ayay runtii u mahadsan yihiin sidaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dad badan inay ku soo qayb galaan yaasiin oo aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo isdabare soo dhaweynaa wixii insha Allah waxyaabaha technical-ka farsamada naga dad baa waxay raadiyaan meelo fancy ah iyo waxyaalo waaweyn iyo wadamo qurbaha ama waxaan leeyahay dadka joogta ama dadka kambaniga ee wax dalbanaya inay ka dalbadaan qofka muwaadinka ee farsamadii haya absolutely qof wax tayalana sameynaya wali wax walba okay adduunyadan uma baahnid kaliya inaad maskaxdan iyo makhaayadaha waaweyn fariisto anaga waxaan xoog saarnaa waxa weeye street food ama street dadkan localka ah ee doonaya in ay wax qabsadaan wax doonaya aadaan meesha markaad soo gashaado si kale ku noqonaysaa laakiin waa warshad dhan oo wax walba u diyaar iminka qaarkii la diyaariyay dad soo dhaqaaqdaan halkan waxaan u maleynayaa kii la diyaariyay waa kuwan halkan waad aragtaa diyaariyad muddo oo la dhameeyay qaarkood moogtahay waa la isla eegayaa ninkan ayaa injineerka ah baan u malaynayaa sida ila muuqato waxaa la eegayaa sida ay sida meesha la jarayo ayuu sheegay insha Allah saasay dadku u dadaalayaan oo wax u soo saaranayaan waxay ka wada hadlayaan in 3 mar ama 2 mar la jaro ayay ka wada sheekaysanayaan ninkaasaa go'aanka gaaraya ninkan waa ninkii jarayay xisaab baa lagu socdaa ciyaar mood xisaab baa lagu socdaa soo ma wax walba waa xisaab qaybtan kale la yiraahdo la jaro
dadaalkaasaa socda miisas iyo kuraas baa laga samaynayaa annagu ma doonno inaan fansiga tagno laakiin waxaan doonayaa dadka wax soo saara inaannu dhiirigelinno oonu tusno xisaabtaan la xisaabinayaa sida loo mitirinaya waad aragtaan loo qiyaasayo mitirka meesha laga jaraya ayay mitirinayaan iyo go'aanka ninka gaaray ninkanaana go'aanka gaaraya haddaa la jarayaa markaa hadda maxaa ladinka soo dalbaday halkan sariiraan ku aragnaa samaynaya sariiraha labada nafaraha ee iskorayey ee loogu talagalay dadka iskaabulada marka waa laba qofood oo dulka ayaa lagu saaray oo kala hooseeya wey okay waa laba sariirood oo isku yaala laba qof baa kala seexanaya ma sha Allah aad baad u mahadsan waxaan u samaynaynaa dadka dad tabarruc oo shahariyada joogta qurbaha xagee jooga dad tabarruc oo marka jaaliyada joogta qurbaha ayaa soo caawiyay qarashka bixiyay dad darbijiif ah okay dad darbijiif ah marka anaguna intay ku darsan aad baad u mahadsantahay dad shaqada bilowdaan waa warshadiir halkan intaan arkay waxaan bilownaa labada habeenimo maya subaxdii waan sheegay subaxdii 7 subaxnimo bilownaa labada iyo 10 duhurnimo ka fariisanaa haddana labadan ku kacna haddana labadan ku kacda 6 fiidnimo ما شاء الله ما شاء الله كان مركا كان هانتي بوي مركا هانتي waxa weeye jiinada kicinaysa naqaska all right كنا مركا waxa weeye mashiinkiga aad ku gogoynayseen كان miis gooniya maada waan isticmaalaa halkan markii ugu horeysay laakiin si fiican baa lagu shaqeeyay service fiican baa yaala markaa dhammaan wax kale waxaan ka codsanayaa dadka doonaya in loo sameeyo kuraasi miisas iyo wixii la halmaala inay ka war hayaan tayo production oo ay joogaan dad aad iyo aad wanaagsan oo si fiican ku raali galinay qiimo aad iyo aad buu jabaya jamaalo sidoo ku soo heshay waa ma sha Allah wallahi kuwa dibadda ka keena ee miis iyo kuraas dibadda ka keena maxaad faraysaa dadkaas waxaan leeyahay waxa wanaagsan dadka waddanka jooga shaqo loo abuuro waa anagu lacagtii waddankan kale maadaama qurba joog waxaan door bidnay inaanu dadka waddanka jooga ma garanaysaa maal gelino si iyaga laftu waxay soo saaraan shaqo abuur ay u helaan iskuulkaaga wax madrasad baan dhisaya baan maqlay oo dadka qurbaha jooga iska aruuriyeen lacag waliba xoogga adiguna aad saartay iyo bulshada kula xiriiraba marka miyaynan markay arkaan in waxaan laga soo saaray dadka shaqaalihii iyo dadkan miiskan samaynaya dhanba inay hargeysa ka yimaadeen magaaladan ka yimaadeen waddanka ka yimaadeen waddan yihiin ma waxa aad iyo aad ugu farxa weeyaan anigu dariiqaanu maraynay waxaan u kuraas qurux badan banaanka taala taasana soo leexisay markaas aad iyo aad markaanu nimidnay aad baan noo soo dhaweysay shaqo fiican oo loo qabtay waqtigii baan noo ilaaliyay waayo inta badan dadka project waxa ka cawdaa waqtiga laakiin waqtiga loogu ballan qaaday ma hadu waan loo sameeyay alaabtii aad baan ugu faraxsanahay marka walaalkeen aad baan u salaamayaa saacadtu wallahi dawada taalaad wala sameynaya kuraasidii way socotaa shaqada sidii loogu talagalay socotaa marka aad baan ugu faraxsanahay hawsha sidii loogu talagalay socoto marka dhammaan dadka ka qayb qaatay waxa leeyahay aad baan mahadsantihiin shaqo wanaagsan baad qabatay kuwa kuraasto ugu dambayn la sameeyay jamaal loo sameeyay oo ku faraxsan yahay hawsha u socoto annagu marna ma ogolin China iyo ruwaayada laga keeno waa in waddanka gudihiisa wixii lagu sameeyo aad dhiirigelisaan dadka dibadda jooga ayaa kharashkan imika jamaal halkan iskuul yar oo madrasada quraan lagu barto ayay kharashka iska soo ururiyeen gruubkana waxay ugu deeqeen inay sidaa u sameeyaan dhisaankii aan ugu talagalnay waad aragtaan halkaana hawsha ka socotay waad aragtaan aad iyo aad buu socotaa soo ma aad iyo aad waa alaabtii uu ninkaas saaxiibkii jamaal dalbaday ma sha Allah 12 kuraas iyo miisaskoodii baanu dalbanay weligaa ka dalbo waddanka gudihiisa ha ka dalbanin China iyo ruwaayadeeda waxaan la yiraahdo qasalku jabka ee China laga keeno waa in aad halkan ka dalbataa oo dhiirigelisaa dadka Soomaaliyeed ee dadaalaya ee isku dayaya in ay waxooda wax ka soo saartaan cilmiga ay haystaan wax ka soo saaraan taas muhiim ah lagadees halkan aad fariisanaysaa wax dhiba mala macaan kursiga iyo miiskii buu isdaba wadaa okay aad iyo aad